soo dhawaada jaamacadda caalamiga ah ee SIU ku soo dhawaada gurigiinii labaad ku soo dhawaada xarun aad joogi doontaan hadday ugu yaraato 4 sanadood oo waqtigiina ka mid ah ku soo dhawaada xarun ku tiimbarasnaa doonto mustaqbalkiina kan dhow iyo kan fogba ku soo dhawaada xarun saameyn muuqata oo mugla ku yeelan doonta noloshiina inta ka dhiman soo dhaweyn kadib waxaan rabaa inaanu u hambaliyeeyo dhammaan ardada cusub ee jaamacadda ku soo biiray sanad waxbarasheedka 2021 uguna hambaliyeeyo juhdigii iyo dadaalkii dheeraa oo ay soo mareen ardayga waxaa looga baahan yahay asluub wanaagsan akhlaaq wanaagsan inuu si fiican wax u barto academic dress fiican soo qaatay intii hore loo sheegay ardayguna muxuu jaamacadda uga baahan yahay wixii uu ku soo doortay ahayd quality jaamacadda inuu ka helo jaamacadda imtixaanaadkeeda meeqa xilli la qaadaa waxaa la qaadaa jaamacadda sida caadiga ah laba qayb ayaa la kala qaadaa imtixaanka qaybta kood waxaa loo yaqaanaa imtixaanka dhexe ama midterm examination ayaa loo yaqaanaa qaybta labaadna waxaa loo yaqaanaa final examination guud ahaan jaamacadda SIU muddo laga joogo 3 sano ilaa 2 sano iyo bar waxay ka guurtay nidaamkii ahaa in lagu soo dejiyo imtixaanka derbiga oo ardayda derbiga ay ka fiirsadaan waxaana loo guuray nidaam loo yaqaano online system oo ardayda ay heli doonaan arday kasta username-kiisa iyo password-kiisa uu ku access gareyn duwan ay ku jiraan portalka jaamacadda mayba laha madaxda iyo macallimiinta jaamacadda mustaqbalkii kaana tumiyo lama sano laha ka oofay oo mayba hiil iyo hooba mayba laha nin la galteeganay waalidiin xaaladii oo sharcadagto oo mayba gobol iyo meel walba ku shalteedan xaaladiisa fahmaysan laha ka tacaway geeka mustaqbalkiisa hay mayba gacanta lahan geliyay jaamacadda SIU haddii isin ka weelan lahaytan mutahamigii iyo mayba mustaqbalkii iyo mayba soo bandhigistiisii hanin bandhigteen oo hayti in jaamacadda iyo barnaamijka lamadaba una ku helaan oo nagada doona ardaydii mayba hogaamiyaalkii dalka sanadaha socda haddii isin ku dhabeeyaytan haddii kale isin kuma qontataa quruxda badan aynu qabsano ee noo qabteen maamulka SIU sida aan noo soo dhaweyseen ee farxadda leh waxaan jeclaan lahaa dhammaanteen inaan idiin soo dhaweyn doono anigoo ku hadlaya afka ardayda cusub waxaan ka mid ahay ardayda cusub ee sanadkan bilaabi doonta jaamacadda SIU qaybtan aan ku bilaabi doono insha Allah fakaljiga aan baran doono hadduu ilaahay idmo ay tahay medicine maanta annaga dhan waxaan isugu nimid inaad guulaysataan ulajeedkan isugu nimid waxa waaye 4 sano soo socota gabdhahan iyo wiilashan sidii ku guulaysan karaan siday 4 sano soo socota sida ugu wanaagsan ugu faa'iideysan karaan 4 sano waa waqti badan bila ka dhig maalmo ka dhig saacada ka tiri war sidee intaas ugu faa'iideysan karaan ardada annagu haddaan jaamacadda nahay ulajeedadaas annagoo u diyaar garoobayna waxyaalaha u muhiimsan oo diyaarinay ardayga waa inaan knowledge cilmi baro waxyaalaha 4 sano aad baran doonto waxa u weyn oo muhiima cilmiga waxaan diyaarinay macallimiin aan isleenahay shahaadadii ugu habboonad ee haystaan khibradii ugu habboonad ee haystaan intaas uguma aanan harina tababaraan qabanaa sanad kasta waxaan diyaarinay laababkaad aragteen